madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ka qayb galay munaasabad baldaaran oo loogu dabaldegayay sanad guurada shanaad ee asaaska Hirshabelle. Munaasabadani lagu xusaayay sanad guurada shanaad ee asaaska Hirshabelle oo xalay ka dhacday magaalada Jowhar ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar, gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Luqmaan Xaaji, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle, madaxweynihii hore ee Hirshabelle, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka, qaar ka mid ah senatarada cusub ee Hirshabelle, xildhibaanada golaha shacabka, xildhibaanada Hirshabelle, qaybaha kala duwan ee Hirshabelle iyo marti sharaf kala duwan. sidoo kale inta ay socotay munaasabada waxaa qadka Zoom-ka uga qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ugu hambaliyay hoggaanka iyo shacabka Hirshabelle xuska sanad guurada shanaad ee asaaska dowlad goboleedka Hirshabelle. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen oo munaasabada ka hadlay ayaa guud ahaan shacabka Hirshabelle ugu hambaliyay 5 Oktoobar oo ku beegan maalintii dibadda loo taagay Hirshabelle. madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in guulo badan la gaadhay, haddana ay diyaar u yihiin inay la tashtaan cid walba oo taabasho qabta, xalkana uu ku yimaado in la isu soo horfadhiisto. runtii waa xilli dambo wax badan aad maaragtay ku habooneed inaan isla wadaago. waxaan rabaa qodob laga hadlay inaan sidii ku haboon uga hadlo. qodobka tabashada jirto diyaar waxaan u nahay haddaan nahay mas'uuliyiinta Hirshabelle cid kaste wax tabanayso inaan kala fadhiisano, waxay tabaysana aan ka qancino, weliba waxay ku qancayso oo macquul ah inaan ku qancino diyaar ayaan u nahay, taasna ogaada. laakiin tabashadu way naga naqan tabashaan qaba imaamaysid kuuna imaama taasoo xal leh. tabashada waxaa lagu daaweyn karaa in la isu yimaado, aan isu nimaado, aan hadalno, wax kaste lagu daawoobayna waa ku daaweynayna cid tabasho qabta diilayna ka. madaxweynaha ayaa ugu dambeyn shahaado sharaf guddoonsiiyay mas'uuliyiin si wanaagsan ula shaqeeyay maamulka Hirshabelle. sanad guuradii Hirshabelle weeyaane sanad guuradii Hirshabelle